السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكان waxaanu ku soo qaadan doonaa 5 arrimood oo aynu adeega iyo dhibaatooyinka nolosha ka baran karno. Qof kasta oo adduunkan ku nool waxa soo gaadha dhibaatooyin fara badan. Dhibaatooyinkaas oo caqabad ku noqda higsigiisa, saameyn ku yeesha go'aamadiisa, kuna keeni kara niyad jab iyo warwar joogto ah. Dhibaatooyinkaas qofka marka uu aaminsan yahay inaanay marnaba nolosha ka maqnayn una arkaan inay yihiin qaar uu casharo ka baran karo, walibana bulshada inteeda kalena ku dhiirigeliyo inay dhibaatooyinka la soo dirsa u arkaan cashar iyo inay yihiin qaar ka mid ah sunaa nolosha adduunyo mid ka badbaadiyey naftiisa iyo bulshadaba. Arrimaha aan soo sheegnay ee ka dhasha imtixaanada adduunka, casharada laga baran karo dhibaatooyinka nolosha inaga hor yimaada waxaa ka mid ah: dhibtan kugu dhacday lagama yaabo inay dib kugu dhacdo, waayo dhibtaani intaanay kugu dhicin ka hor maad filaynin inay kugu dhacayso ama maad garanay sida ugu wanaagsan ee loo xalin karo ama looga hortagi karo. Tusaale ahaan, waxaa kaaga dhacay ama laga xaday mobilkaagi adiga oo bas saaran, in mobilkaagu baska dhexdiisa kaaga dhici doono ama adiga oo aan dareemin laga saari doono maad filaynin. Waxaad garwaaqsatay muddo kadib in dhacdadaasi sabab u ahayd surwaalkaaga oo ahaa mid jeebkiisu ballaadhnaa oo mobilku ka dhici karayay adiga oo aan dareemin. Markaad fadhiisato sidaa darteed inaad isku daydo inaad ogaato sababta kugu keentay dhibtan iyo sidii mustaqbalka looga hortagi lahaa ayaa ka wanaagsan inaad murugo iyo niyad jab kaga jawaabto. Qodobka labaad, waqtiga ka soo wareega markay dhib kugu dhacdo waa mid kaa caawinaya inaad ilowdo dhibtii kugu dhacday ama xal u heshid. Waqtigaas ka soo wareegay waa mid aynu ku baran karno sabirka iyo adkaysiga dhibaatooyinka. Waqtigaasi waa mid inaga caawin kara inaynu u helno xalal kala duwan dhibtaan inala soo diristay. Waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo inala soo dirsa oo aynu isla markiiba xal u heli kari weyno. Dhibaatooyinkaas oo aynu muddo kadib u aragno qaar iska caadi ah ama muddo kadib aynu xal macquul ah oo xalin kara dhibtaan aynu helno. Tusaale ahaan, sicir barar ka jira meel ka mid ah Soomaaliya waa mid qoyska Axmed saameeyay, laakiinse markii wax laga qaban waayay in muddo ah, Axmed waxa uu isku dayay ama uu ogaaday sidii uu isagu naftiisa iyo qoyskiisa sicir bararkan oo jira ay haddana noloshooda u maareyn lahaayeen. Taasna waxaa keentay muddadii badneed ee dhibtaani jirtay, waqtigaas oo daawo iyo cashir u noqday sidii ay qoyskaasi uga bixi lahaayeen dhibtaasi. Number 3, xaaladu waa isbedelaan. Qofku waa inuu aamino inay xaalado noloshu isbedelaan. Murugada, farxadda, warwarka iyo niyad jabka waa qaar ay keenaan xaaladaha inaga hor imaanaya. Dadka intooda badana waa qaar jecel inaanay xaaladuhu isbedelin. Dadku waxay jecel yihiin nolol ay ka hor imaanayso keliya waxyaabaha ay jecel yihiin, nolol ay saadaalin karaan dhibaatooyinka ka hor imaan kara. Laakiinse cashirka aynu ka baran karno dhibaatooyinka iyo xaaladaha nolosha ee isgedgediya waa inaynu aragno in isbedeladan dhibaatooyinkan inaga hor imaanaya ay yihiin qaar ay la socdaan fursado iyo nolol cusub oo ka gedisan noloshii hore ee aynu ku noolayn. Tusaale ahaan, waxaad waxbarasho u aaday waddan kale, waxaad aragtay dhaqan ka gedisan kaad hore u taqaanay, waxaa kugu qasab noqotay inaad barato luuqad kale iyo wixii la mid ah. Laakiinse waxaad ka faa'iiday dhibaatooyinkaas inaad noloshaadi ka saartay deegaankii ay taqaanay ee ay saadaalin karaysay. Dhibaatooyinka ka hor imaanaya tagtayna waddan ay adag tahay saadaalinta dhibaatooyinka ka hor imaanaya, sidoo kalena ka heshay fursado badan iyo waayo aragnimo aad ka faa'iidi karto mustaqbalka. Tusaale kale oo kooban, dhaqanka diinteenu in subaxii hore la kaco ay sunno tahay waa mid dhib iyo xaalad cusub ku ah qofka aan xilligaas kici jirin, waayo hurdada macaan iyo caadadan uu bartay ayaa ka hor istaagaysa. Balse waqti kadib dhibtaani waxay noqon doontaa mid ku caawisa inuu helo fursado iyo waqti uu arrimo badan ku qabsan karo. Number 4, dhibaatooyinka inaga hor imaanaya nolol maalmeedkeenu waa qaar kalsoonideena kordhin kara. Kalsoonidan oo ka imaanaysa ka gudbista imtixaano alle markii hore uu doonayay in uu ku tijaabiyo inaad noqon karto ama aad tahay qof adkaysi leh oo isku daya markasta inuu baadho siyaabo uu tijaabadan kaga gudbi karo. Sidaa darteed, kalsoonidan aad ka heshay ka gudbidda imtixaanada kala duwan iyo sabirka aad la timi waa qaar kaa yareynaya warwarka iyo cabsida aad ka qabto inay dhibaatooyin kale
kugu yimaadaan mustaqbalka. Waxaa hubaal ah in dhib kasta oo aynu la kulannaa ay yihiin qaar darajooyin leh, mid kasta tan kale ka culus tahay xalinteedu ama ka fududahay. waxaana suurtagal ah in marka hore aynu ka shakino awoodda aynu u leenahay xalinta dhibtan, laakiinse waxaynu arki doonaa in dhib kasta iyo imtixaan kasta oo aynu ka gudubno aynu ka heli doono kalsooni aynu ku xalino dhibta kale ee ku xigta. tusaale ahaan, qofka 5 jeer shaqo laga eriyey ee haddana mar helay ka fursad waayo aragnimo iyo kalsooni badan yahay inuu shaqo helo mar 6aad haddii la eriyo ama uu ka tago isaga shaqadaas marka la barbardhigo qofka markii uu horeysay shaqo laga eriyey ama ka tagay. Number 5, cabsida iyo warwarka la socda. dhibaatooyinka adduunku waxay ku barayaan naftaada sida saxda ah marka ay xaaladuhu kugu adkaadaan. cidda aad caawimo bidayso marka hore waa Alle iyo naftaada. xilliyadan waxaad naftaada weydiinaysaa waxay aqoon hayso ee ku saabsan dhibtan, cid khibrad u leh arrinkan, iyo inaad ku dadaasho inaanay dhibtaani kugu keenin warwar joogta, niyad jab iyo cadho keeni karta inaad dembi ku dhacdo, sida inaad qadarka wax ka sheegto. sidoo kale imtixaanada adduunka waxaad ku qiyaasi kartaa u adkaysiga aad imtixaanada adduunka u leedahay heerka uu gaadhsiisan yahay. tusaale ahaan, qofka ayaa waxaa laga yaabaa inuu lacag yaraan ka sabri karo, laakiinse ay ku adag tahay inuu ku samro xanuun adag oo haleela. ugu dambayn, muuqaalka waxaynu kusoo koobaynaa in dhib kasta oo inaga hortimaada aynu marka koowaad ogsoonaano in dhibtaadu ay tahay sunnaha nolosha adduunyo. marka labaad, in dhibaatooyinka aynu cashar kala duwan ka baran karno, casharadaas oo aynu bulshadana ku caawin karno sidii ay uga hortagi lahaayeen ama ku xalin lahaayeen haddii ay dhibtaas aynu hore ula kulannay ay iyagana la soo deristo, caawintaas oo aynu inaguna ajir Alle kaga helayno. marka saddexaad, dhibaatooyinka iyo imtixaanada inaga hor yimi iyo sidii aynu u xalinay waa qaar aynu kalsooni aynu dhib kasta ku xalin karno ka kordhisin karno marka aynu bulshada la wadaagno. daawade, haddaad ka heshay muuqaalkan like sar, sidoo kale haddaad ku cusub tahay channelka Rajada Maanta subscribe dhe baleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee. If you like my video, don't forget like and subscribe my channel. Let us comments below.